sanadku markuu ahaa 1999 waxaa jiray nin dhalinyaro oo magaciisa la oran jiray Max Levin. ninka dhalinyarada da'diisu waxay 23 sano jir, wuxuuna dhigan jiray kulliyadda computer science. ninka dhalinyarada wuxuu ahaa nin hami weyn leh, wuxuuna doonayay dunidan aan ku noolnahay inuu wax weyn ka bedelo. daawada kana agsal garaadada hore ugu taxaneed fadlan like saar, haddii aad ku cusub tahayna fadlan like iyo subscribe saar. halkan ayay ka bilaabanaysaa qisada 19 nin oo dhalinyaro oo da'doodu ay u dhaxaysay 25 sano jir ilaa 40 jir, kuwaasoo maanta ka mid ah asaasayaasha iyo maamulayaasha qaybo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn dunida sida YouTube-ka, LinkedIn-ka, Tesla iyo SpaceX. sidoo kale 19 nin ee dhalinyarada ah majalada Forbes sanadkii 2012 waxa ay ku tilmaamtay maafiyo ama maafiyada PayPal. halkan waxaan idinku soo gudbinayaa qiso cajiib ah oo aad iga yaabisay, taasoo ah maafiyada PayPal. laakiin marka hore aan isla ogaano shirkadda PayPal waayo. dib haddana aan ugu noqono ninkii 23 sano jirka ahaa ee Max Levin. Max Levin fikradii maskaxdiisa ku jirtay si uu banaanka u soo dhigo waxa uu u baahay in maalgelisa. dabadeed nin saaxiibkiisa ayaa waxa uu kula taliyay inuu aado jaamacadda Stanford University, halkaas oo ay u badan tahay inuu ka helo cid maalgelisa. nasiib wanaag meeshii ayuu aaday, maalgelina waa uu helay. asaga iyo nin kale oo garyaqaan ayaa waxay aasaaseen nidaam si electronic lacag la isku gudbinayo, kaas oo labada qof ee lacagaha isku kala gudbinaya looga baahan yahay inay haystaan bitaaqa yar. shirkadaasna waxay u bixiyeen Fidelity Link, laakiin nasiib xumo shirkadda suuq ma soo dhaweyn, mana aysan helin macaamiil tiro badan. sidaa daraadeed si ay shirkadooda khasaaro uga ilaaliyaan waxay la midoobeen shirkad kale oo la yiraahdo Confinity. waxa ayna magacii u rogeen labada shirkadood markay isku dareen PayPal. halkaas ayaan ka timid shirkadda weyn ee maanta aynu naqaano ee PayPal. shirkadda PayPal waxay noqotay mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn dhanka tiknoolajiyadda, qiimaheeduna waxa uu gaaray 800 milyan, dadka isticmaalna waxa ay gaareen 13 milyan. hal mar ayaa waxa dhacdo aad looga yaabay. shirkadiisa u weyneed waxaa gatay shirkad kale oo la yiraahdo eBay. nimankii dhalinyarada nin walba waxa loo celiyay lacagtiisii iyo saamigii uu shirkaddan ku lahaa. qisada meesha ugu yaabka badan waa halkan daawaday. nimankii dhalinyarada markii lacagtooda loo celiyay dadku waxay u maleeyeen akhbaaraadka shirkadaas aad kula socday waagaas. nimanka dhalinyarada haddii lacagtooda loo celiyay inay magaalada kala geli doonaan oo lacagtooda ay ku dhalinyarayn doonaan oo ay siyaalka lacagtooda u isticmaali doonaan. laakiin waxa ay sameeyeen weerar rogaal celisa. waxa ayna weerar baan ku soo qaadeen suuqa, gaar ahaan suuqa tiknoolajiyadda. qaybo ka mid ah nimanka dhalinyarada ah ee shirkadoodii markii la gatay kala yaacay, nin walba soo lacagtiisa haysta. waxaa ka mid ah ninka loo yaqaano ee maanta caanka Elon Musk. ninkaas oo leh shirkadda Tesla ee soo saarta gawaarida ku shaqeeya korontada. sidoo kale waxa uu leeyahay shirkad kale oo la yiraahdo SpaceX, taas oo hawada sare gantaalo u dirta. sidoo kale nimanka dhalinyarada waxaa ka mid ah nin magaciisa la yiraahdo Peter Thiel. ninkaas oo waa dambe markii uu Facebook soo baxay hanti badan uu haystay oo shirkaddii PayPal looga soo celiyay ku darsaday, halkaas oo uu ka faa'iiday lacag aad u tiro badan. sidoo kale nimanka dhalinyarada waxaa ka mid ah 2 nin oo dhalinyaro ah oo magacooda la kala oran jiray Steve iyo Chad. labadan nin waxa ay asaaseen meesha aad hadda muuqaalkan ka daawanayso ee kanaalka YouTube-ka, inkastoo waa dambe ay shirkadda Google ay ka gadatay. sidoo kale nimanka dhalinyarada waxaa ka mid ah nin kale oo la yiraahdo Reid Hoffman. ninkaas oo aasay shirkadda caanka ah ee LinkedIn. ninkaas lacagtiisa maanta waxaa lagu qiyaasaa $2 bilyan. sidoo kale daawadayaal nimankaas dhalinyarada waxaa ka mid ahaa oo laf dhabar waxa oo haddana maanta dunida daafir aad looga yaqaanaa ninkii fikradaba keenay ee Max Levin. ninkaas waxa uu sameeyay website weyn oo la oran jiray Slate, kaasna markii dambe waxaa gatay shirkadda Google. nimankan dhalinyarada waxay caan ku ahaayeen intay fikrad keeneen inta badan gadaan. sidoo kale nimankan maanta waxay saameyn ku leeyihiin wadada Silicon meesha loo yaqaano ama harada Silicon, halkaas oo ah meesha ay ku leeyihiin xarumaha ugu waaweyn shirkadaha ugu waaweyn tiknoolajiyadda sida Twitterka, Google-ka iyo Facebook-ka. nimankan saameyntooda iyo ikhtiraacii ay dunida soo kordhiyeen tan iyo maanta waa ka muuqda, waana qiso cajiib ah. niman dhalinyaro ah oo shirkad yar asaasay oo shirkad ka weyn ay u timid, dabadeedna lacagtoodii nin walba loo celiyay oo la siiyey. dabadeedna waxyaalahan dee maskaxda aysan suuraysan karin suuqa soo geliyay. waa qiso cajiib ah. dabar adayg ayay sameeyeen, maantana saameynta ay ku leeyihiin tiknoolajiyadda dunida daafeheeda ayay ka muuqataa.